ورحمة الله وبركاته. marka hore waan idin salaamayaa ummadda islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan. waa Xaaji Maxamuud in ka hadlaya. waxaan rabaa inaan arrin ka hadlo beriyaha kan social media haysatay. horta Xaaji Maxamuud nin ka weyni nin laba gu iga weyn horta Cabdiwaraabaa jiray oday la oran jiray Hargeysa ku dhintay beri dhaweyd. Soomaali cid iga weyni horta ma jirto, laakiin hal arrin baan maqli jiray wadkaa raaga carab ay gadhalayana waa kutusaalinbay ama wadkaa raaga kaasi carabaan weligii geel arag bay ahayd. raaga haddaan waaye badan jirtid maalinba waxbaa kaa hor imanaya, wax aad la yaabtid baa maalinta dambe maqlaysa. aan arrinta aan u gundadigo aan u socdo. Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa xil ilaah baa lahaa suusidaa. mar hadday midiyaha dhex sabaynayso inaan ka hadlo waa ku khasbana. horta waxaan idiin sheegayaa nin baa wuxuu yidhi dowla idin dhalashahu weli dadka muxuu ku farayaa. nin boqortooyada ummadda Soomaaliyeed ah oo ilaahay ka dhigay waxaanuu yahay iyo waxaanuu yahay horta maanta waxba tari mayso. nin kalena waa heesayo wuxuu yidhi dhoolay dhar waa suuf, daldalaalla waa dahab, dhaban waa kan kugu yaal, dhaladna waa kan adag. aan xaajada u gundadego waxbayaan ararta ku raagaya. waxaan uga dan leedahay awra male reerka la yidhaahdaa ama Ibraahim Ismaan Ibraahim. waxa weeye boqortooyadii ummadda Soomaaliyeed waan caddaynaya. dhulka lagu waabayona dhaqan iyo dhalasho isma galaan. Gadheere bawaagtiisu meel walba waa taal. laba nin buuna dhalay. dhul badan baa lagu hayaa taariikhda iyo qoraallada Gadheere laga sameeyey. hadduu Ibraahim Gadheere ku jiro, haddaad ka soo heshaan Ibraahim Gadheere laba nin buu dhalay. labada nin uu dhalay waa tan bawaagta abtiriska Gadheere ku qoran. haddii aad ka soo heshaan Ibraahim Gadheere uu dhalay saddex buuba dhalay, saddex qof nin buuba dhalay. haddaad ka soo heshaan waxba ma aqaani, xaal baana bixinay. taasi waa taa anu Soomaalidana way istaqaan. reer waa bartiyaqaan baa layidhi. bartiyaqaana waxba ma kororsado. reer dhalasho huwan dhoolay nin dhalasho huwan dhar muxuu ku falayaa. dhoolay dhar waa suuf, dhaldalaalla waa dahab, dhaban waa kan kugu yaal, dhaladna waa kan adag. awdamare dhalasho iyo boqortooyo ummadda Soomaaliyeed boqortooyadeedii abuu huwan yahay. waana idin sheegay. ninka la khalday wax la khalday hadday jiraan anigu
wax hortayda ka yidhaahda ma niman meel fadfadhiya iyo waa arkaayo iska hadlaaya waxay yihiin si aanan anigu garanayn waa abtirsadaa ninku waan si abtirsanayaa wax walba halkay tahay baan dhigayaa ku soo aroorinayaa ninkii aan waxba kala garanayno dhagaha waxaaji maxamuud horta maxamuud harti laba nin buu dhalay waxaa la yidhaahdaa naanaysahan ka raacayaaye waxaa la yidhahdaa warsangeli iyo hijiye ama axmed iyo maxamed labadaasuu dhalay maxamuud harti warsangeli iyo hijiye hijiye waa taqaani waa nimanka halkaa fadhiya warsangelaa soo haday warsangeli wuxuu dhalay warlabe iyo warma eke warlabe waa nimanka halkaa fadhiya warma eke baa soo haday warma eke wuxuu dhalay kooge waa garaadkii la caleema saaray ummadda soomaaliyeed oo dhan intay isugu timi soomaali magaca sheegta magaca soomaali sheegta baa boqraday kooge dir iyo daano iyo hawiye iyo cid kastaba soomaali oo dhan baa boqratay 1293 baa soomaali caleema saaray garaad kooge wuxuu dhalay cabdi kooge iyo cabdullaahi kooge ama dhidhiin kooge iyo garweyne kooge cabdi kooge waa nimankaa garweynadii oo taqaaniin halkaa fadhiya waxaa garaadnimadii ummadda soomaaliyeed qabtay dhidhiin kooge oo cabdullaahi ah wuxuu dhalay xamargale garaad xamargal u dhalay garaad xamargale wuxuu dhalay garaad xamargale wuxuu dhalay axmed xamargale iyo yuusuf xamargale iyo ibraahim xamargale iyo cabdalla xamargale iyo cumar xamargale xamargale dee waa taqaaniin waa siiye dubays iyo cumar iyo cabdalle waa taqaaniin ibraahim xamargale baa farcamayn isna ibraahim xamargale wuxuu dhalay waa ibraahim xamargale oo garaad ah oo garaad xamargale dhalay afartii kale halkaasay u bayday waad garanaysaan waa wada garanaysaan dubaysi waa yuusuf xamargale ibraahim baan wadaa ibraahim xamargale oo garaadkii ah oo wuxuu dhalay islaan ibraahim iyo cumar ibraahim ilma cumar ibraahim waxaa la yidhahdaa bahfadow ilma cismaan ibraahimna waa 5 oo bahfar kastaa la yidhahda okay marka cismaan baa lagu socdaa bahfadow iyo ilma cumar ibraahimna dee waa taqaani maxamuud cumar iyo axmed cumar iyo maxamed cumar iyo yaasif cumar iyo waa kuwa bahfaragsata oo ilma cismaan ibraahim oo hooyadood faragsata la yidhaahda waa 5 waa ibraahim cismaan ibraahim oo cawro male ah waa xuseen oo colmahare ah xuseen cismaan ibraahim waa maxamed oo iswayuud ah soomaali isgabyawuud bay tiraahdaa laakiin iswayuud baa loolan jiray waa maxamed cismaan ibraahim waa cali
ismaan ibraahim oo idagmuga loo yaqaano waa olmarade maxamuuda xamuud ismaan ibraahim shantaasuu dhacay ilma ismaan ibraahim hooyadoo gaa farooye ilma cumar hooyadood oo farooye ah iyo shanta ilma ismaana hooyadood oo falagsato ah qabiilkoodu waxay ahaayeen maraaraa la yidhahdaa maraare hadda waa laga helayaa maraare almadow baa laga soo helaya nimanka aadaxii la yidhahdo iyo weydiiya xabaasha wacle haddaad tagtaan 4 reer 5 reer 6 reer oo maraare ah waad ku arkaysaan waa islaamihii falagsato iyo farooye ahaa oo midna ilma cumar dhashay midna ilma ismaan dhashay عودبني هو يدي العلماني هو يدي بعد بقى فديده هذا سيدكيدي عدي حيد باولي ولي شان قويس لix qoys ay ka joogan almado iyo laasbari ka joogan oo laga tuuray been loo yahay waxba oo qoradan laga tuuray عودبني هو يدي halka iska fadhida reerkii yani dasiirkii wad عدي ay ka soo jeeday baa weli laasbari fadhiyaan oo reer laasbari laga heliyo balin هو يدي halka iska fadhido baa mar wax lagu sheegay waa maraare هو يدي laba qeystaaba maraare ahay xana qani hadii maraare laga waayo laba qoys 3 qoys laga soo helay laga waayo la إبراهيم بال أوجه بالله مقعد أورمل وإبراهيم إسلام إبراهيم ninka maanta dhaqan iyo dhalasho waa kala gaar farxdiba u dareeraya iyo ninkii abtiriskiisa ka tagay isaga yaqaan laakiin warka Soomaali baa u sheegay kadheer waa ka buugta ku qoran laba nin buu baa labadii nin u dhalayna waa kuwa dhulka joogay awramada kadheer iyo Ibrahim kadheer ka soo saar ساسو هي بقطوي ومضى الصومالي ساسو هي وحي سياسة كان مركي تبوتي للجولي وبارلمان كان الله ما شنطة بقول يخطط كان لقى دقي انت وما انت هذا الله الشيخ شريف لما راح ويرها لقى دقي كدير هو توليني او رمله طبعا كي حلبان هو السنجري بكرة قيب قالوا قيبتي ثقافة البرلمان كله كدير مو يرادو أنا إذا لا قيبي شيء والسجل وحده اللي بتجينا حلي ما كوضح قادنينا ما يرادا ما كأول ملء والسجل لنا وبرتيقا وإيش يبيه لنا نقطه عند مشيتنا أول ملء لا بقرتني ويجي وطويل أمة الصومالية سمعنا كديرنا وددي ديغان يدقى وداغان نينكي أبتير سيسي دورة يورا واقعان إذن شيء لحدي المعروف إلما إبراهيم لها إلما إبراهيم إسبان إبراهيم حمر قلي أولا مراسو أول مراسو صاحي قيبنا وقت سناك فديدا وقربها كان قربين مركا الله يرادو نينك أضيبا واحد وطبعا ولين المخبأ سناك وسجل سناك مركا الله يرادو جمحات أو عبد الله أضيبا واحد المخبأ وهدو مقلو طبعا دي dadkaagii baa dad kale lagu sheegaya farato uu ka dhicila lixdii markaa soo guuray odaygii mandhoolay ilma Ibraahin ahaa adeerkood baa soo raacay Xuseen qaybna waa kuwa ka yimid oo hadda wadanka degan tahay hada oo Cabdalle waa ka fadhiyo wasangal oo odayga u ah ma baan taabana wiilashii baa
وصوحة ساسي لحد عورة مليه إيوه أديركم والمحرقة والحسينة يسو قولين هذا المحرقة قيبة حقا هذا ودكين هذا أنا اللي هذا يدكين طلع دواخا وسجل ورجع وعنيو فدياي ويدي المحرقة حقا من الدكين هيدا ساسا لحد عورة مليه يعديركم وعورة مليه والحسينة ما يشيه بوضع تسخاطي magacyadoodan waa ka aan diishay awra male abtiriskiisuna wax ka kadheera halka fadhiya abtiriska kadheerana waa qoran yahay labadan inuu dhalay laba magac bay leeyihiin akhrista halla kala saaro dhalashada iyo dhaqanka arrinta siyaasadda hore looga shaqeeyay jubbooyinka in warsangeli lagu qaybiyo boqortooyada koonfur fadhida oo wasuulin waxa weeye awra male wixii kaloo la dhasho walaalahoodina waa la fadhiya laakiin waxa uu boqor ah awra male boqor ah siyaasadda harti oo lagu kala qaybiyey doonay warsangeli lagu kala qaybiyo هذا إذا تصل نودع وهم هذا ولا يوصل لكم فريد به نيجي هرتجيري يعني كهلا يحكوها لكن هو بقول إذا بنا كذا فريدة لكن أبي هي أبي يمكن فرح نبقى قادر يا مانتا وصاقا هي كان نيجي أبتلك أو ربنا عن قراني أما واحد روشي هنا هو يدي سيد كذي بقول له فوري فريدة ومرارع فرقصته تبكي كذا راتي لا فوري هذا فريدة قارب كنت فرقة سجوي مربع كشيء كيني يا إذا هدي له بعين هاي وقرا دقيقة أبغى وحنكون سوق جبينية وإدين شيء dhaqan iyo dhalasho waa kala gaar dhaqan ninkii doonaya oo gadheere Soomaali ka sheekaynaya Soomaali oo dhan baa wada digta oo dhaqanka wadaagta dhalasho ninkii ka sheekaynaya dhalasho waa tii loo dhashay waa tii Soomaali u dhalatay waa taa qoran awra male waa ina Ibrahim إبراهيم عثمان إبراهيم حمر قالي بالدين أنا عبد الله نانا يسحى كراعي عورا ملك عثمان إبراهيم حمر قالي بالدين كوغي ورمائك والسنجري محمود حفتي وكا إنكي أبتدكي سدوري نينكي وحانو جينا وحين هالك الله فرديا أنا بحرنا كما قال لك أبيه ديدي لكن أمد الصوماليات أو رمالي وحكا وريكا بقوتوية هذان قالوا سيدي لوسو كالقوري أو رمالي إيو إلما أو رمالي إحدى أو رمالي يأدي سكوت والمرحبا كل قد مسو قوري المرحبا قيبتي بحق فريدة مسو قوري سنجلي بدن با قوري وجبوتي ديكن وإليتريا ديكن وإثيوبيا ديكن وساسانيا ديكن من والبا ديكن مرحي الماء إبراهيم الماء إسمان إبراهيم يلقى إبراهيم لها وقتي على دبلها به وقرات كأها أياس لا يسخبتي بقطوية دي لا يسخبتي الماء عمر فاهم الماء إسلامي فاهم بإسلامي لكن قراتي ماشي كبحي هذا واحد قبصدي الماء إسمان الماء إسمان إلا بقطو لقوله شيء حكم كان لقوله شيء بإسلامي
gabyawuud baa hadda loo yaqaan oo maxameda iswayuud baa la oran jiray iswayuud baa carradii qabsaday waxaa soo qaxay ilmo cawramale iyo adeerkood waxaa qaxay maxamed waxaa qaxay abubakar maxamed wakaa bal idankaa jabuuti diga oo ra-iisul wasaaraha jabuuti ka mid yahay oo maalintii dhaweyto warsangeliga kale wiilkaygu ka mid yahay iyo casilaay oo ra-iisul wasaaraha ka mid yahay waa abubakar maxamed oo dhan ba ayana guuray ilma maxamuud cumar barhkood baa guuray nuux barhkood nareytaa maqlaysaa canfarta islaamilka etoobiya oo gabadhii wasiirka gaashaandhiga ay ka soo gashay ay ka soo gelaysay berigii dhaweyto cido waxaasoo dhan baa guuray qaybi waa taa islaamilka canfarta degan oo gabadha wasiirka gaashaandhiga dowladda federaalka etoobiya gabadhii berigii dhaweyd ahayd ay ka mid tahay qaybi waa kuwa degay waa abubakar maxamed cumar waa kuwa degay jabuuti degan oo ra-iisul wasaaraha jabuuti iyo ka mid yahay oo xildhibaanada badan berigii dhaweyto ay hargeysa imanayeen soo kama maqlayn abubakar baan una saasaa loo kala iswaliyada gabyaweyda maxamed oo dhulka haysta ila cismaan ibraahin ah oo maca intii ilma cismaan ibraahinkii kale qaxiyey ku kala tegey baa cali dable soo noqday cali dable saylac iyo waatu xukumayay qarnigii lixi halkaa fadhiyey oo iminka saddex dureeyood buu leeyahay qola cali ugaadeen bay noqotay ugaadeen bay kaasi ku dhex jirta qolana waa qolada gadabiisho iyo dhinaca jabuuti iyo udhaxeeya iyo gobolka awda sida wuxu dhaceena waa sidaa cawramale iyo colmarare oo adeerkiisina ilma cawramale iyo colmarare adeerkooda keligooda ma guurin waxa uusan gelin maanta dowladaha kale ku kala jira waxaasay isqabteen gabyawuud iyo cali dabla iskale markii u dambeeyey oo ku kala adkaaday arrintu waa sidaas cali dable iyona isla soo gaadhin wixii dambe gabyawuud baa carrada haystay macaa ilma cismaankii kale badda soo qaxiyey cidda markii dambe labada isale waa cali dabloo soo noqday iyo gabyawuud baa loo rogay iswayuud baa looran jiray way cismaan ibraahim macnuhu waa sidaas ninka ku sheegaya cawramada ina soomaali lahow ay dhaqanka wadaagaan ninka ku sheegaya abtiriskiisa hanoo sheeg ninka samaala cawramale dhalay labuuba dhalay ma nin ah labadana waa la yaqaane xaggee kaga qoran yahay abtiriska soomaali uu kaga qoran yahay labuuba dhalay hadda hooyadu ilma cumar iyo ilma cismaan ibraahinba hooyadood baan idiin sheegay cawramale iyo shanta ilma cismaan ibraahina waa faragsata hooyadood waa maraare waa ayo daaroodba maaha waa soomaali uun lainu inuu dar yahay maaqaan haddaa laga helayaa ilaas qoray jooga sayidkii ka hadhay hadday bahfarweye tahay iyo hadday bafaragsata tahay waa taa hooyadood weli sayidkoodii uu joogaa haddaa laga soo helaya daaroodna unba dhasha maraare in kasta oo reerha laga helo sayidkoodii haddaa laga helaya hooy falagsato reerkii ay ahayd falagsato waa cawramale hooyadii marka in magac iska sheegaya dhaqan dad wadaaga iska sheegaya yaa buu leeyahay marka ninka doonaya cawramale artiriskiisu waa cawramale ibraahim waa cawramale cismaan ibraahim xamar gale idiin kooge warma eke warsageli wakala kii doonayaa sida aanu sharaxayna waa sidaa hooyadiina waa taa sayidkeeda halka iska fadhiyaa halka sayidkii ka hadhay reer falagsato hadday joogaan oo aanay
daarood baa hayna maraara la yidhahda maraare marka waxaan idiin sheegayaa reer gaamuray oo koonfurta degan ee soomaaliya oo boqortooye ah afkay ha laga daayo inta dee aan waxba garanayno wax loo sheegay oo la yidhi waxaan aad tihiina waxba lagama gelin dee faraqnimada iyagu qaadanaya aada iyo aad baan idiin salaamayaa nin walba ha abtirsado ninkii shaki ku jiraana dhicane ha iska qaado dhicane ha iska qaado soomaalidu isku dhicane maaha sayidkuba guuro biyo oday la guuraan ya marka aad baan idiin salaamaya waxaan rabaa oo xaaji maxamuud aan hadalkayga ku dhammaysanaya wiilal yaryar oo buulkii hooyadood ku dhashay aan meella ka qaban warsangelina oqoon ninkii aabe horta kale maanta samaysanaya isagaa og laakiin waxa iigaba muuqatay dad aan warsangeliba garanay oqoonba wax warsangeli la yidhaahdo ama maxamuud harti la yidhaahdo oqoonba u lahay haddaba nin baa la oran jiray garaab cali baa layihi soomaaliya u badan warsangelaa u badan haysu sheegina haddaan idin leeyahay soomaali maxamuud harti baa u badan warsangelaa u badan haddaan idin leeyahay waana buruf garaynaya halkaa ka dhegeysta inuu u badan yahay haddaad inta uu dawlada degan yahay ama inta uu dal degan yahay wax degan aad soomaaliya ku aragtaan been baa sheegayaa waana idin caddaynaya markaan idiin caddayn waayo ayuunbay waxaan noqonayaa nin iska hadlay baan noqonaya haddii kalese dee nin aan warsangeliba oqoon baan noqonaya kii iska hadlay waxaana idinku baysgaraynayaa inta dal ay degan yihiin boosaska ay ka soo qabteen ama ku fadhiyaan baa miisaankooda idiin caddaynaya warsangeli horta labada gobol oo soomaaliya ugu waaweyn waa bari iyo sanaag intooda badan warsangeli baa fadhiya hadday bari tahay iyo hadday sanaag tahay xeeb iyo calmadowba haddii soomaali iyo oromo la rabo aan waxba u noqotee labada gobol oo soomaaliya u waaweyn khariidada ka eega midda 40% bay degaan midda 90% bay degaan waa bari iyo sanaag dowladda federaalka ah waxaa ku metelaya wasiirka ugu tunka weyn haddaad tiraadaan inta jago uu isku hayo wasiir baa isku haya wasiir isku haya baa jira intuu wasaaradood isku hayo been baan sheegaya jamaal maxamed xasan baa la yidhahdaa bari iyo sanaag buu ku metelaya dowladda federaalka waa wasiirka qorshaynta kow xiriirka caalamiga ah 2 maalgashiga 3 horumarinta dhaqaalaha 4 boos buu isku haya waa kay wasiirka isku haya taasi waa tan labaad Jabuuti waa adarkiiseen inay wiilkayga galbinayeen iyagoo madaxdoodii ilaa ra'iisul wasaare aan cidi ka maqnayn waxay fadhiyaan ra'iisul wasaarihii waxay fadhiyaan wasiirkii arrimaha gudaha waxay fadhiyaan wasiirkii cadaaladda waxay fadhiyaan wasiirkii ganacsiga qabiil aan awood lahayn inta wixii xildhibaanada dareerayaan arkiisay hargeysa warsangeliga kale kula shigay haddii aanay qabiil gaamay ahayn intaasoo boos ma qaadan lahayn maa dalka ra'iisul wasaarihii dalka ismaaciil cumar geelle ku xigay iyo jagooyinkii wasiirada ugu firfircoonaa ma qaadan lahaayeen waa 2 eliteria
baarlamaan iyo wasiirka ugu tunka weyn waa warsageli wasiirka arrimaha dibadda waatuu xabar ka soo degaya wacayo wadan cumar faahina maxaad cumaraha wasiirka arrimaha dibadda ilitariya ma la siin lahaa haddaani miisaan haddii aanay ku fadhiyo saddex ismaamulka Ethiopia federaalka Ethiopia gabadha wasiirka gaashaandhigga ka ahayd waayo haddii aanay miisaan iyo ummad iyo dad aanay ku fadhiin wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ma noqon lahayd shan ma tahay Kenya ilaa maantii Jomo Kenyatta qabsaday ilaa maantuu dhintay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga wasiirka Kenya maca amniga wasiirka hadda laba wasiir baa laga dhigaa wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha loo kala qaadaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Ali Aadan Lord ma aha ilaa Jomo Kenyatta maantuu qabsaday ilaa maantii Jomo Kenyatta dhintay أو يطبع كاسنا ذو ثوني وسجلي ما هي وعلي هذا اللور ما هي جوجل قرية مولدينا علي هذا اللور قلية هتاين عبيد الأسقر كل شيء بكل شيء وهو هدان الميزان كيني الميزان هو سجلي فدين وسير كاتبها قدها يبدأ كما كان دخل الحياة شيشريس تطبع مياه وسيرك هرمرينك إذا تلحيسك إنا محمود عليه السلام عليه كما دكاه حتى أن الله تبويك إنك استحاد يعني لا سنة تفوق إلى حلبان وكل شيء باي بقول ninka maanta madaxda bay iyo bakool ka ah horta yaa tahay yaa tahay waatu baahintii duweyto ila jibriil qablaniyo oo dhulkii iyo dadkii iyo soo tusayay oo ilaa markii dambe madaxtooyada basiira oo keenayo oo dhulkii la isu raaco dalka iyo dalka uu kala barayay Ahmed Jibriil qablani yaa tahay dhaxaya waxba banaadir iyo hadda diwaad ogtiin bay ila tahay ilaa jawhar مدوع وسوكر كحاجي تدكا وحي انت تدبدا الدولدود اي مدحتك كبيه وميزان وشتنقل ميزان كودا بقاسي منكي ان وصنقل اقوارو ساعة وبارو سيدا وبارو ninkii jiirhaanku weynaadayo sidaa u baro tawaadadkiisa fantasiyaha markii wiilkaygi tageen waxay samaynayeen markaa geysa yimaadeen usageli jabuuti nin laangaabi intaasoo dowladood madax kama noqdo waa ay reerka Soomaali ah oo intaasoo dowladood fadhiya oo intaas oo madax ka soo noqday isheega waa ay reerka warsageli aan ahayn waa ay isheega waa ay reer qurbe iyo waxa ka hadli maayo saykalka inta xiran baa sheegaya oo dadiska oo dadkooda isu galo waa ay reerka intaas madax ka soo noqday intaas oo madaxa reerka dalka soo noqday dowlad walba jagooyinka ugu waaweyn fadhiya waa ay warsageli ahay soo sheega inta ay tahay marka intii haddana meel keligii taagan laangaab waa kaas dan laangaabta u taqaanin anigu laangaab faracaan u aqaana iyo wixii aan faga farac dheerida marka laabtirsanayo baan u aqaana laakiin haddaad tirada u taqaanin sida Soomaali sida hadda ma aha sida aanay ahayn
وخلط كهدات وتشويسا غيرك ميزان كيس انت جارسي انت صدر اي فديان سيدا مدح uga noqday in aan miisaan lahayn meel walba madax kaba noqday soo sheega isoo caday hadda Soomaali sheeka ugu badan waa Warshadii waa Maxamuud Harti sheeka ugu badan Soomaali haddana Soomaali ugu badan ugu miisaan weydayda waxa aan ka sheekiyay beemaanta fadhiyaan madaxdiisa علينا لما نضرب يتطور الأول والله ما ذلك لكن إنك وحسك مغلي وإسكها الله يعني مرحبا إذا لك هلا القريب خاينا هلا القريب مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتهين دقيستيال وتاريخ ريبكي تسعي على السمتر وآدي آد بمهسيني هاي حافظ الله سلطان محمود oo cawaale salmaanku magac dheer saldanadii baa hadlaysa saldanadii dadkeedii daba joogta saldano dadkeeda ha ilaashato xasuus iyo taariikhna ka tagto ayaan leenahay hal laga reebo taariikhda hal laga reebo saldanada waxa nool oo masxafiyada hala dhigo jaamacadda maakhir hala dhigo waxa weeyaan xafiisyada hala dhigaan leen insha Allah geliya YouTube ka geliya Google ka geliya dadku waa in ay wax reeb leeyihiin oo wax loogu iman karaa af looma baahna waxa weeyaan fadhi ku dir ka shaqeyn mayno inagu waxaan ku baahnaa taariikh reebna loo baahan yahay wax asaliyad baa loo baahan yahay asaliyad qayb baad dirajeenaya insha Allah barash si share garaya halna lagu dhaqmo hana la iimaansado bismillah wa asal history ba weeye waxaan halka la soo dhigay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh